الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. marka ugu horeysa waxaa salaamaya madaxweynaha Maxamed Jaamac Yuusuf Xalac Indhasheel, golaha xukuumadda, golaha dhaqanka cuqaasha, waxgaradka iyo garabweynta iyo guurtida horteyda fadhida, gabdhaha iyo dhalinyarada iyo dhammaan kasoo qaybgalayaashan maalintan ballaaran kasoo qaybgalay. marka la isku soo ururiyo waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi waa maalin aad iyo aad u weyn, waa maalin farxad leh, waa maalin rayrayn leh, waa maalin u muuqata sida qoraxdu u soo baxdo. waxaynuna u dabaaldeganaa sanadkii labaad ee maamulkeenna laba jirsaday ee Khaatuma State of Soomaaliya. waan isleedahay waxaa laga xusayaa maanta meelo aad u badan oo caalamka daafihiisa ka mid ah, taas oo dadkan mabda'an aaminsanna ay u tahay farxad iyo rayrayn, dadka colaadda u hayana ay ku tahay dhabarjab iyo cuqubo. Khaatuma waa magac qiimo badan. qofku waxaa la yidhahdaa ilaahayow acmaashayada Khaatuma khayr noogu khatim. marka waa mabda' dad qaatay, waa mabda' dad dhiiggiisa ku jira, waa mabda' anina lagu dhibay. mabda'a isaga ah waa loo samraa oo waa loo silcaa oo waa waxa weeye saamaha loo gubtaa oo waa la baxnaaniyaa oo busaaradda iyo gaajadaa loogu adkaysaa. markaasaa waqti lagu gaadha. sida aynu dabeecadda caadigaa ku ognahay, ilmuhu stage buu maraa. ilmo laba jiri isaga in la manaafacadsado wax laga dayo caqligu keeni maayo. in la koriyo, in la wax la baro, in la waabaxnaaniyo xilliga uu leeyahay in wax laga dalbo ama uu wax qabto waa waqti, waa inuu qaangaadhaa. marka dee waqti bay maraysaa inaysay maaragtay haddii waxyaala muuqdaan oo dadka ay waxyaalo dhaliili u muuqdaan, haddii wax la qoonsado, haddii si kale wax loo arko, haddi waa wiilkaa laba jirka ah oo waddada haya oo koraya oo hadda socod baradka ah, nin kasta taakul uga baahanya. waxaan markaa leedahay aan ku samiro, aan u dulqaadanno, aan korinno, aan aaminno. dadka aaminsan inay Khaatuma hadday dhimatayna ama ay xoogaa siriirtay ama suuxdayna, subaxaa saakaa indhaheeda waa arkaa. ninkii maaragtay si gaara u eegayo indhaheeda waa arkaa iyo maaragtay dadka aaminsan. kuwa ka daldoorsaday oo aanu ognahay inay reero kale hadhuubkooda eegayaan ama ay ku dhaacanayaan dad wuxuu dhistay. nin walba wixiisa uu isagu leeyahay wuxuu dhaamaa ma jiraan. akhyaarta dibadda ee qurba joogta ah oo aan isleedahay waa inooga dadaal badan yihiin, oo aan isleedahay waa inooga waqti hurid iyo dhaqaale hurid badan yihiin, oo aan isleedahay iyaga damiirkooda ayaa wuxuu diiday in quruun iska dhan la sheegto oo ay reere la joogaan, oo ay maaragtay caqligooda iyo maskaxdooda la xawilo oo talada laga qaado oo loo taliyo. inaynu fahno way fiican tahay arrinta sidaan u eg. waxaan mar labaad qurba joogta leedahay hadalladan aan salka iyo raadka lahayn
oo dad dana gaara leh ay wareejinayaan waxba yaan dhigta loo dhigin waxa kan waa mabda dad aaminsan yahay waa gobonnimo dhimasho iyo dhaawacba waa leedahay waxaan xusayaa mujaahidiintii ku dhimatay halkan lagu laayay xaqdarrada iyo jawrka iyo kuwii dhibta geystay horta waan ka tacsiinanayaa marka hore arrintaa waan ka tacsiidaynayaa waxaan leeyahay innagana waa inaga dhinteen samiriyayaan allah inaga siiyo iyagana jannatul firdaws allaha geeyo kuwii dhibta geystayna hadday maanta ka baxsadaan maxkamadda ilaahay baa sugaysa taasaynu la sugan hadday tan heeg iyo ka baxsadaan tan caalamka waa ilaahay baa sugaysa khiyaaray waqtiga iyo dadka oo maaragtay aan isleedahay dee kolliba waa la daalan yahay awgeed waxaan hadalka ku soo ururinayaa maamulka cabdiweli ee puntland u dhashay wixii ay iyagu dan moodaan baa naga dhexeeya mar labaad iyo mar saddexaad waa raagaya waa saabaya qaatumo waa laga yaabaa inay maaragtay ayaamo ay maaragtay waa laba jirka la isku haystaa waa dhulka aynu degannahay oo resourciga ku jira ayaa ummaddu isku haysataa sanad walba intaasoo milyan baa laga qaataa oo maaragtay iyadoo dad sheeganayo inagoo ku dul degan waxa la isku hayaa inta way ka weyihiin sheegashadu wax badan baa la isku hayaa siyaasad iyo dhaqaale waa la isku hayaa inuu qofku dareenkaa lahaadana waa lagama maarmaan qof kastaana wuxuu khaatumo gashado buuga aayaya salaamu calaykum